hawshii na sugaysay baan rabaa haddii nafta alla igu simo oo ilaahay guushana siiyo annagoo caafimaad qabno sida ugu degdegsiya badan waxyaabihii inaan qabta aan rabo ilaahayna noo fududeyn doona insha Allah yaan idin sheegi doonaa hadda horta waa mid oo hal ceel ayaad qabtaan location iyo sublocation ceelko keli ma anfici kara maxaa hadduu jabo waa in la haysto meel kale waa in la haysto ceel kale oo saddexaad oo lagu talagalay maxay ahayd xoolaha iyo wax kastoo dhan iyo mid maaragtay spare marka ugu yaraan laba ceel oo kale ayaan ku kordhin doonaa Kawanjeere insha Allah saab marka waxaa kaloo samaynaynaa insha Allah Allah ku si hay waxaa kaloo samaynaynaa insha Allah waxaan hagaajinaynaa taangiyaal waaweyn oo biyaha lagu kaydinayo oo sare waxaa kaloo samaynaynaa gabdhaha waxay ku rafaadeen cawliyahan meel alla meel ay joogaan oo dhanbo inay maanta oo dhanba 20 mililitarkii garaangariyo ay garaangariyaan taana dhibaato badan bay keentay waqti badan bay ka qaaday culays badan bay u geysatay caafimaad darro ka imaatay waxaan ka shaqaynaynaa sida ugu degdegsiya badan in bayb la geliyo meel kasta oo gabar kasta gurigeeda dhexdiisa ay biyaha ka furato bisha markay dhamaatana wax yar oo khidmad oo 200 shilin wax la mid ah laga qaado taa iyadana insha Allah waan samaynaynaa gabdhaheena mar damba mar rabno inay bahalkan ay garaangariyaan maartay oo dhibka iyo qaxarka iyo rafaadka kala kulmeen tacliinta waa muhiim maadaama tacliinta ay muhiim tahay iskuulka waan kordhin doonaa ilaa 8 galaas baan ka dhigaynaa insha Allah waxaana ka dhigaynaa boardingkaasayto oo qaybta gabdhaha iyo qaybta wiilasha oo xoolo dhaqatada intay carruurta kaga tagaan meesha ay danahooda iska wadan karaan insha Allah isbitaal oo health center waan dhisaynaa insha Allah sida ugu degdegsiya badan oo isbitaalkaasaytoona oo mulse yeelan doonto haddii inta looga helayo nidaam isku xidha dhowr magaalood oo nin dhakhtar weyn oo maaragtay masal dhakhtarad weyn oo ka umilsan loo keenayo waxaan ka samaynaynaa midwives wax la dhaha ayaan meel kasta geynaynaa insha Allah intaana boljer waxa lagu qaban hayana Kawanjeere baa iska leh ogaada hadda wax alla wixii annaga aan qabano mashruuc ahna faa'iidadeeda iyo hawl qabadkeeda Kawanjeere baa iska leh dad meel fog ka imaaday diinteena islaamka ilaahay u maartay nagu haystay oo nagu deeqay madaarista la dhisayaa dugsiyada oo taxfiidka la dhisayaa waad maqshan Soomaa aniga raadinaa dhaqaalahooda macallimiin madarisooyinka baraan carruurtana waan idin keenaynaa insha Allah haddaad keensataan idinkana anaga lacagtooda bixinaynaa may maqlaysaan war may maqashaan maqla hada ku aad maqla dayactirka masaajidka noogu daran inaga masaajidka laga hadeenina waa asaga waa ku soo gunaanuday waad maqashay Soomaa tahdil waay wax kale oo dhan baraka male weeyaan soo midan garan waa inaan diintaanada aan ku adkaysano waa inaan maaragtay dad dhaqan leh oo maxay ahayd islaam aan ahaano laazim waa in diinta ay noqoto ka horgalka masaal baabka laga galaya horumarka ummadda islaamka meel alla meeshay degan tahay oo dhanbo taana waan idigu boorinayaa anna waan idin garab taaganahay masaajidyaha la dhisayaa madaarista la dhisayaa taxfiidka la dhisayaa culimada idin maanta wax idin baraysana waxay ahayd lacagtoodii baan idin raadinayaa insha Allah waad maqasheen Soomaa kuwa idinka aad qorataan ayay ugu fiican tahay maxaa diinta aad baa loo yaqaanaa culimo badan baa taqaanaa oo madaarista intay uga bilaabaan ibtidaa'i ilaa thanawi ku gaarsiin karaan war sawirada ima waa joogan Soomaa kuwana annaga shaqaalaysiinayna insha Allah biidna Ilaahi albaari war ma fahamteen maxaan ka tagay oo idinka hadda waan ogsoonahay marmar inay dhacdo cudurro badan oo xoolaha ay dhacaan markay dhacaan mar kastaba ma dhacaane daawooyinkaas ay toona gurmadkeeda waan ku hawlgalayaa waan idin keenayaa meelaha laga dhagalgalo oo laga gacan galiyo oo looga fara dhubnaada Ilaahay baan baray waanu ka shaqaynaynaa midda iyadana waad garteen Soomaa cudurrada xoolaha waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin